واضح أقبل أبدا قيادة هذا بس يا دور كبكم مغلسين حركة الشباب أي شيء إن إساق وير قادين سلدق عيدا وإليه الميليتري معمول قبلات كبتلان وحنا حركة الشيعين هالكا كتيلين إحداميات كريو كتيرسن عيدا مدي سلدق جوي وبتوير قدعي وأفقر وكتيرسن قبل كبري وحنا قياسي 7 كيلومتر وجرتا مقالة بوساسو هذا بقى محمود علي وورك على السعودية هات الاستوديو هاي لفتي محمد بل محاول دبي أحمدو رسمي لو ما خسارة هذا شيء ورا كان بس تذكر الله هذا الله وحيلو شيئان إن ورا هو حامد في اللومي وقت سحورته لو كعي حري وحو سعوديين قبل 6 ساعات waxay sheegatay al-shabaab inay dishay ilaa 6 koow askari oo ka tirsan ciidanka Puntland gaar ahaan ciidamada raawista goobtaas ku sugnaa waxa kaloo sheegay inay la tageen halkaas kala kaxaysteen ilaa 16 baabuur oo dagaalka ah xiriir ayaa la sameeyay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Ali Qarjab oo ka gaabsaday runtii inuu tafaasiil ka bixiyo sida wax u dhacaan balse waxa uu xaqiijiyay inuu weerarka dhacay wuxuu yiri baaritaan ayaa socda kadib ayaan arrimahaasi usoo bandhigi doonaa warfidyeenada sidoo kale goobtan waxay ahayd goob ka tirsan degmada galgala oo aan ognahay in ciidamada dowladda Puntland maamulka Puntland iyo kuwa al-shabaab ay muddo badan ku dagaalamayeen weerarkanna waxa lagu tilmaamay inuu hakii ugu cuslaa oo muddooyin badan ka dhaca Puntland sidoo kale waxa uu imaanaya Axmedow sida la ii sheegay wararka ka helino Boosaaso in howlgallo ay dowladdu fulisay lagu soo qabtay dhowr baabuur oo siday qaraxyo maalmihii la soo dhaafay marka inta ayaan hadda ognahay wixii ka soo kordhana waa أديات معتي محمد علي محمد ونوجو ورمي ورركا لو قادين عيدمدا بنتلان أي الشباب قادين ساكوا